السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها وان سلامي ميلا جوجتان با waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ka hadlo afar hogaamiye oo dunida islaamka iyo dowladaha islaamka soo maray qaarna haddaba ay madax yihiin inaan wax yar ka iraahdo ujeedada aan u samaynayo waxa weeye inaan wax yar idinka sheego ma raba hadda inaan faahfaahiyo laakiin ru'uusul aqlaam waxa la yiraahdo warka madaxdiisa oo kale baan rabaa inaan ku siiyo kadibna message iyo risaalo ku saabsan inaan wax yar ka sheego muhiimaduna allabiibu yafhamu bil ishaara baa la yiraahdaa oo qofka aqliga lihi ishaarada iyo tilmaanta wax uu kala dhaxbixi karaa afartaas nin ee hogaamiyalka midi waxa weeye ninka la yiraahdo Imran Khan waa ra'iisul wasaarihi Pakistan waa nin dadkiisu aad iyo aad u jeclaayeen buu ahaa ninkaas oo loo diiday inuu ka qayb galo xitaa doorashadii maxkamadii iyo mashaakil badan baa lagu furay isagoo oo wiigii hore maxkamadda fadhiya oo judge-kii hor fadhiya ayaa waxa la yiraahdo daaqada ayaa waxa soo jabiyay booliskii halkaasaana lagala baxay isagoo ummaddu u wada jeedo oo calan ah kadibna wadankii oo dhan baa kacay sida u jeedaan wad ogtihiin meel walba ayaa isbedeshay wadankii baa faraha ka bixi gaadhay waa laga sii daayay hadda xabsiga waxaana laga codsaday wadanka inuu dejiyo waa xubbiga iyo jacaylka ay u hayaan dadkiisu su'aashu marka waxa weeye limaada why loogu diiday inuu dadkiisa madax u noqdo jawaabta adiga naftaadu ka qayb qaado arinta labaad waa madaxweynihii Masar soo maray Maxamed Mursi wuxuu ahaa nin la doortay wuxuu ahaa nin dadku aad u jecel yihiin wuxuu ahaa nin isaguna dadkiisa jecel waxaad ogtahay meesha uu ku dambeeyay iyo shacabkii sida markii dambe loo baabiyo u mudaaharaadayay isagana xabsiga la geliyay madaxweynihii ilaa uu xabsiga dhexdiisa kaga dhinto su'aal limaada why isagana loogu diiday dadkiisa inuu xukumo waliba maquulo aad u cajab badan hadal la yaab la buu yiri wuxuu yiri la taqtulu usuda biladikum fata'kulakum kilaabu a'daa'ikum wuxuu yiri hadilina wadankiina dadka usuud waxa la dadka libaaxyada wadankiina oo dhawaan ay idin cunaan cadawina ayadooda ayga cadawaaga ku cunaya hadda adigu aad disho libaaxa wadankaaga waxa lagu sii deynayaa ayga dadkaaga cadawga ummadaha kale ninka saddexaad waa Umar al-Bashir waa madaxweynihii Suudaan wuxuu talada wadanka qabsaday 1989 ilaa wuxuu xukumayay 2019 hadda 30 sano ayuu wadanka maamulayay runtii dadka garanaya ama yaqaan baa garan kare wadanka horumar buu wax badan ka gaarsiiyay ilaa uu wadanku tawajuh dadka islaamkii dunida islaamka uu meel fiican iyo mowqic fiican uu ku yeesho wuxuu aalaaf Soomaaliyiin kumanyaal iyo kumanyaal aan tiro lahayn oo Soomaaliyeed ba wax ku soo baran jiray 1995 ilaa 98 baan anigu joogay waxaa suuragal ah inaadan arag gabadh Suudaaniyad ah oo madaxeedu qaawan yahay oo jidka maraysa inaadan arag bay ahayd xilliga ilaa un jaamacaadka qaar oo dadka deemaal qabeenka iyo kuwa mucaaradka ay ku badan yihiin ma ogi wuxuu ahaa wadan uu waxyaabo badan ka tirtiray waxyaabo leeyahay khamrada iyo calaqa iyo waxna hadda Soomaaliya ay la wareersantaad aragteen macmalka guryaha lagu sameeyo khamrada dadka lagu kharibay Suudaan wadanka ugu badan oo hawshaas sameeya ayuu ahaa waxyaabo kale oo amraad cudurro kale oo badanna way qabeen oo qoomuluudnimada iyo waxyaabo badan oo kamid yahay waxaas oo dhan waa la tirtiray ilaa wadankii uu noqday xitaa tacriib waxa lagu sameeyay in wax walba loo bedelo carabi laga dhigo markii dambe say doontoba ha noqotee ninkaas waa loo diiday inuu wadankiisa sii xukumo oo sii maamulo maalintaas laga soo bilaabana dagaal baa lagu qaaday waxaana lagu daray wadanka waxa la saaray cunaqabatayn waxaana lagu daray dawladaha dadka irhaabka iyo waxyaabaha la ceyrsado ilaaliya lagu daray cunaqabatayntiisa ahayd buu hadda ku jiray hadda oo aragteen xaaladda Suudaan meesha marayso haddana cunaqabatayno cusub baa la sii saaray
arrin ninka afraad ama ninka qaa'idka afraad ama hogaamiyaha afraad waa Rajab Tayyip Erdogan oo isagana aad garanaysaan meesha uu wadankiisa u gaarsiiyey dowladaha hoose intuu ka soo qaaday buu dowladaha adduunka u sareeya dhinaca walba bay maanta Turkigu la tartamayaa ninkaas isaga waxaa la isku dayay in inqilaab iyo afgembi lagu sameeyo ilaahay wuxuu ku badbaadiyay telefoon uu ka soo hadlay hadda ka hor waan ka hadlay telefoonkaas oo kale uu ka soo hadlay ayaa wadankii dhan ilaahay ku badbaadiyay shacabkiisu say dadkiisa u jeclaayaan darteed hadda intikhab iyo doorasho socota afar nin baa la tartamaya mid waxa weeye waa shiici mid kale oo sunni cilmaani aba jiray waxa lagu furay waxyaabo shukuuk iyo waxyaabo kale ayaa lagu furay oo isaga ceebayn ah ilaa lagu qasbay inuu ka baxo doorashadii si aswaad iyo codkii uu heli lahaa qolyahan kale ilaa waa cilmaanigu muslimka saxda siin maayo codkiisa xagga kale u leexin ay kuwa shiicada u aado natiijaduna waxay ay noqoto sida ay rabaan inay dadka kala la doorto isaga meesha laga codbato wuxuu nin Mareykan maalin dhaweed hadlo siyaasi ah wuxuu yiri hadii Rajab Tayyip Erdogan laga guuleysto احتفال بانديغينا بادي بان سمينينا بمعنى وان كفرحينا واي maxaa loogu diidan yahay inuu xukumo wadankiisa qof saas dadku u jecel yahay oo saa horumar u gaadhinay waxaan rabaa marka inaan iraahdo message-kayga ugu dambeeya ama muhiimadda aan u duubaya kalimadan in ay dadku ogaadaan in badanna way ogtahay adduunka dad baa wax maamula inta badan bacda Allah ilaahi ba subhanahu wa ta'ala koonkan iskale laakiin dad baa caalamkan u shaqeeya sidoo marba u soconaya nin walba kii madax noqon dad baa maamula dadkaasi raali kama aha dadka wadankooda munaasabka u ah raali kama ah dadka wadankooda muslix iyo wanaaga u wada raali kama binaan ala hada halka iyagu ku dhisaya ya imma qofka madax noqon adduunka inuu iyaga taabicu noqdo oo noqdo qof la hago wixii la rabana loo sheego iyo in wadanka la dumiyo labadaas wax ka dhaxaya ma jiro waxaan rabaa inaan ku iraahdo on qof walba iraahdo ujeedadu waxa weeye inaad ogaato qofka u wanaagsan wadankiisa looma ogola haddaba waxaan rabaa adiga naftaadu fikirkaaga ku darso intaani waa hordhac waxaan isku day doonaa inaan si faahfaahsan uga hadlo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wajazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh